السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa. halkan aan naga daawanaysaa waxa weeyaan xaraga waan official yaani baa Cabdiraxmaan xaraga ma sha Allah. dhamaantiin waxaan leeyahay fadaan kariim meel kasta aad joogtaan. ma sha Allah aad baan idin soo dhaweynayaa marka ugu horeysa. halkan garabkayga waxa jooga saaxiibkay madal leaderkay qaaliga Axmed Daawud. Axmed Daawud asxaab xalad aad baan u salaamayaa asxaabteena qaaliga meel kasta ay kala joogaan aad nagala socotaan waxa weeye xaraga wan official oo runtii halkaas aad nagala socotaan aad baan idin jecelahay soo dhawaada mar walba waxaan idin leenahay aan isku xidhnaano page waa page-kiini YouTube waa YouTube-kiini insha Allah aad baan runtii u salaamayaa asxaabteena Axmedow sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in maaragtay channel-ka ay noo kala kiciyaan oo ay subscribe kala dhacaan oo ay like kala dhacaano kaloo idin ka dalbanayna insha Allah oo idin ka codsanayna inaad YouTube-ka waxaan ku wariday aad ka dhigtaan YouTube-kiini oo aad subscribe noo saartaan waniyo Axmed waxaan ku sheegayaa mid xaggan oo Instagram-ka oo cadaan oo xaggan Instagram-ka ku jira ba YouTube mu lahayn waqti marka aad iska asxaabaan nahay YouTube channel baan furanayaa ninkii uu furtay markiiba YouTube-kiisa saasaan u galay adu dhowr cisho kor u furtay deedna markaasaan sidaa u galay markiiba saasa loogu yaacay macnaa waxa la gaarsiiyay markiiba 40 marka macnaa halka waxa ka cad in dadkaasi ay isdheeri galiyaan oo ay maaragtay markaasi aanay baasha iskala bakhaylin idinkana waxa weeyaan walaalkiin Soomaaliyeed subscribe-ta umada kale like-ta noo saar oo dadka gaarsiiya si aan waxyaabo badan oo xiiso leh oo waxtar leh oo waxa ku wariyo idinka liftiinu aad ka heli doontaan insha Allah asxaabay waa sidaa uu inoo sheegay saaxiibkay Cabdiraxmaan runtii dadkeena Soomaaliyeed waa dad runtii qalbi wanaagsan walaaltinimada jecel isku xidhnaanshiyaha aad u jecel bay dadkeenu yihiin runtii wanaagii iyo sharaftii iyo xisigii la inooga bartay baan jecelahay inaad annagana noo muujisaan oo nastaan inaad ma garanaysaa channelkiini dadweynaha channelkeeni weey marka aad inoo kala kicisaan oo like iyo share iyo commentiga intaba aad runtii noo dhaaftaan kulli barnaamijyo xiiso leh sida uu inoo sheegay saaxiibkeen Cabdiraxmaan barnaamijyo xiiso leh la soo wadaagi doona insha Allah oo marka ka bixi doona channelkeena YouTube-ka marka asxaabay aynu ka wada faa'iideysano like iyo share waa xaqiina bal aynu aragna marka wanaaga iyo jacaylka umada Soomaaliyeed ka dhaxeeya comment fariimo iyo talooyin insha Allah aad baa maasantiin aan isku xidhnaan insha Allah kulli maanta waa iska rabadaan maaltii misaad baynu ku jirnaa 12 miya 12 Axmed Daawudow niyo baryahan waxa imka YouTube-ki marka sidaa u galaba meeshii aan sidaa u arkaba waxa ka soo horeysa uun yani gabdha Soomaaliyeed ama dumar Soomaaliyeed oo yani la share garaynayo oo waxa ku kulleeyay ama ha noqdaan dad lamaano oo gaf ka dhex dhacay ama ha noqdaan maaragtay ama shakhsi ba ha noqdo waxa Soomaalidiiba ay ku soo jabtayba inay views ku raadiyaan yani qof dumar oo walaashood ah oo marka qaar markaasi aan asturnayn in marka social media lagu baahiyo bal iyo arrinka maxaad ka leedahay leader arrinkaas runtii waa arrin aan aad iyo aad runtii ula yaabanahay aadna runtii aan oga qeereysanahay waayo arrin lagu yaqaanay dadkeena Soomaaliyeed maaha waayo dadkeena Soomaaliyeed waa dad dun xariir ah Soomaaliyeed marka waa dad dun iyo xariir ah oo runtii dun xariir ah oo rag iyo dumar wanaagsan oo waxaynu isbognahay marka dib loo celiyo tusaale ahaan oo kale 60 sano dib loo noqdo ummadeena Soomaaliyeed karaamada iyo sharfida haweenka Soomaaliyeed halkii ka taagnaayeen waxaynu isla garanaynaa had iyo jeer waxa taa ina tusaysa marka oo tusaale cad aynu soo qaadan karayno marka gabar Soomaaliyeed la doonayo in reer laga dhigo oo la guursado reer kale lagu soo kordhiyo oo reerkeedii iyo laga doonto waalidkeed waxaynu in badan garanaynaa wixii laga bixin jiray taas marka waxay noo cadeynaysaa meeqaamka iyo sharafta iyo waliba halkay ka taagnaayeen ragga dhexdooda dumarka Soomaaliyeed in la iseeyo la sharfo la karaameeyo qiimihii ay goosanaysay iyo in ka badan ba in loo huro oo runtii laga bixiyo qoyskeedii lagu maamuuso marka kaafiye kala dheeri maanta ka halkaynu taaganahay iyo daraad halkaynu taagnayn waa kaafiye kala dheeri maxaynu u nisbayn karnaa haddaba inay keentay farqiga intaa leh in dumarkii sida loo liido in raggii ay ka soo dhex baxaan rag noocana
in dumarka ay ka soo dhex baxaan dumar noocan in waxa keeni kara inuu isleena magaalo galka oo dadkeenu had iyo jeer miyi bay ku urursanaayeen ama xoolo dhaqatay ahaayeen ama dad reer guuraaya labadaba baa loo kala baxay ama reer guura ama dad xoolo dhaqato qof waliba marka la isma haleelay qof walba wuxuu ku mashquulsanaa arrimihiisa gaarka arrimihiisa qoyska iyo runtii inuu nolol maalmeedkiisa dhacsado iyo inuu xoolihiisa raacdo oo dee ilaashado oo kolba meeshii biyo leh iyo meeshii daaq leh iyo meeshii allah mustacaan caws leh inuu geysto oo marka intaaba uu ku dhex daalayay bimacnaha oo waqti badan ka qaadanaysay inuu danihiisa ku foofo halka kuwa reer deegaankuna ay iyaguna ka shaqayn jireen beero falashadii iyo sidaa darteed dadkeenni markaa reer miyiga ahaa ee hore saddex shaqo bay u kala bixi jireen hooyadu waxay ahayd arrimihii daakhiliga ama arrimihii gudaha oo waxay in badan ku foognayd arrimeeda qoyska sidii markaa raggaa foofay ee beeraha soo qodaya ee xoolaha raacay ee ubadkeedu ay ka mid yihiin inay dabcan dee cuntooyinkii iyo hurdadii gurigii iyo biyihii iyo beedkii ay biyo iyo baad ay usii samayso si marka ay soo daalaan ay u nastaan hooyadu intaasun bay ku foognayd ay ku mashquulsanayd cadeedda u soo baxaysa oo u dhacaysay jaanis kuma heli jirin markaa sheeko badan iyo wareeg badan iyo dumar kaloo jaanis la isku helay iyo dabcan waxaasoo dhan meesha way ka maqnaayeen dadkeennii hore reer miyiga sidoo kale gabadha gashaantidee markaa joogta gurigooda miyigaa ku noolayd dabcan iyadana hawl badan baa u taalay dadkaa foofay ee xoolaha kaheeyey baa mar ay ka dabageynaysaa qado mar waxay ka dabageynaysaa mar biyo dhaamin bay ku jirtaayoo dareerkii bay dabcan waxaynu ognahay markay meel miyiya tahay oo deegaan miyiya la degan yahay intii garanaysee meelay biyo ka dhacsadaan baa jira ceelal ama berkado ama markaa kolba waxay dee meesha la joogay ku xidhan tahay marka mar haddii reerkii uu dee berkad ku agtaalo ku xidhay biyo dhaamin badan baa inantii looga baahaya gashaantida ahayd ee reerka markaa u weyneyd marka jaanis ba uma helayso inay fadhido iyo inay sheekayso dabcan mar harar bay soo haysaayo dabcan guri bay dhisaysaa aqal soomaaligii iyo dee hararkii bay soo haysaa xadhiggii bay soo haysaa allah mustacaan mar caanihii bay lulaysaayo dee ciirtii iyo subagii bay ka saaraysaa caanihii mar allah mustacaan timaheedii iyo hawsheedii bay ku mashquulsantao iyadii baa dee iska shaqaynaysa oo nolosheedii qurxinaysa marna hooyadii baa caawinaysaa cuntadii bay la karinaysaa ama hawlihii kale waaweynaayo bay la qabanaysaa marka gabadha dhalinyarada ee markaa hore miyigeena joogtaana jaanis uma heli inay sheeko badan qabsato ama ay magaranaysaa dad ka fikirto inay wax ku tiraado caydo aflagaadayso waayo isgaadhsiina may jirin shaqa miilka markaa isaga laftiisa aynu ka hadlayna miyiga markaa ku noolaa isaguna intaa in leego aabihii buu caawinayay oo wuxuu ku mashquulsanaa had iyo jeer sidii beerta loo fali lahaa sidii xoolaha loo raaci lahaa sidii ma garanaysaa hawlo badan oo kale oo dee qoyska dhexdiisa ka sugaya inuu dee isaguna buuxiyo positionkiisii haddaba aynu soo noqono magaalada maxaa dhacay magaalada kadib markii magaalada la soo galay kadib maxaa dhacay waxaa dhacay dabcan dadkii way magaaloobeen badii dadkeenna magaalay soo galeen reer magaal bay isu bedeleen reer magaalnimadii waxaa xigtay markaa inay dadku mar ka dambeeya ilbaxayaan oo ilbaxnimada mar ka dambaysa ay dabcan dee sii weynaanayso oo ay sii joogtoobayso kadibna magaaladu waxay keentay markaa TV inuu yimaado gurigii in badan hooyadii iyo inantii ay fadhiyaan jaanis badan aanay u helin inay baxaan ay shaqeeyaan ama wax culus qabtaan inankiina sidoo kale waxbarasho yaroo kooban loo diro oo nuso saac ama dee 6 saacadood ama 8 saacadood ku beegan kadibna uu markiiba guriga ku soo noqdo fadhigaa badan markaa wuxuu keenay fursada in TV-gii in badan waqti lagu baxayno markaa daawaha saarnaayo dee aynu maanta yeynu aflagaadayeen macnaha waxa intii marka intaasina waxay ku koobnayd internetka iyo mobilka weyn waa la iskala yimi waxa soo kordhay waxa arsaaqadii ku dhex jirta baa la yidhi waxa ku dhex jirta arsaaqadii macnaha qofkii arsaaqad ka raadis buu noqday intii waaba ka timido marka hore sheekun bay ahayd iyo shukaansi iyo maxay tiriyeen muxuu yidhi waxa soo kordhay waxa la yiraahdo aalado ah YouTube allah mustacaan waxa soo kordhay waxa la yiraahdo Facebook waxa soo kordhay YouTube waxa soo kordhay meel wax deel duuban la gelin karo macnaha video duuban la gelin karo muuqaal live la soo geli karo waxa soo kordhay TikTok aalad kale ka sii daranba saddexdaas oo isbiirsaday waxay keeneen markaa in arsaaqad laga raadiyo arsaaqadu ah laba nooc inaad caan noqoto waa inaad cid caydo ama aflagaadayso ama cid wax laga sheegay adiga laftaada ku dhex jirto sida shaydaanka aad labadooda ka dhex shaqayso iyo inaad adiga laftaadu cid caydo toos ugu badheedhaba labada qodob bay markaa dadkeena ku soo urureen iyagoo markaa lacagna ka raadin subxaanallah arrin buu markaa ka sii foolxun arrin buu ka sii foolxun yahayo midba mid bay kuu sii dhiibaysa shalay dhaantay mooyee maba lahaba maantay dhaantaa markaynu u fiirsano dee maanta waxay maraysaa hurdooyinkii in hurdadii kamarada lagu xidho wax baraanki la yidhaha baynu soo galay baraankigaasina wuxuu keenay in fara badan aan odhan karaa anigu waa meesha laynaga soo galay dhalinyaradii Soomaaliyeedna ay ku halaagsantay hooyooyinka Soomaaliyeedna ay ku soo biireen
markii barankigaas markaa soo baxay waxa la ogaaday in waxa la yiraahdo secret camera inay jirto oo dabcan meel kala duwan la gelin karo gurigii telefoonkii la dhex gelin karo computerkii lagu dhex xidhi karo waxa soo dhan waxay keeneen chance in la isku wada dhaco oo waxii privacy-ga markii hore ahaa markii la isku dhaco uu dibadda yimaado oo hooyadii ay marka dambe dhexda farta ka qaniinto marka hore ogolayd in wax iska duubo wiilkii ogolaa marka hore in wax la iska duubo iyagoo markaa dadkii lacagna raadinaya sumcadna iyo magacna raadinaya awal sumcadda iyo magaca waxaynu ku raadin jirnay inaynu dagaal gallo oo cadow jabino inaynu gaalo la dirirno inaynu waddankeena xoreysano inaynu magaranaysaa ugaadha iyo xayawaanka iyo dilibaax u badheedhno laakiin maanta sumcadda iyo sharaftii waxaa laga raadinayaa in qof la caayo la aflagaadeeyo markaa lagaaga cabsado ninkani waa afqarmuun yahay waa caytan badan yahay allah mustacaan ninkani caan buu noqdo meelahaas laga arkaa taaba markaa ay gashay sumcadda iyo sharafta taasina waxaan leeyahay waa nasiib darro waa meel runtii aad u hooseysa waxaanan jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan adduunkan haddii aad in badan aad dad dhibaatayso waa laga yaabaa in lagu seeto dheeray waxba aanay kugu dhicin oo dadkiina iska difaaci kari waayaan laakiin aakhira dambaysa oo dabcan gud baa layna dhigayo iil baa inaga dambeeya halkaana waxay nagu sugaya xisaab adag waxaan markaa u soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ragtiga noogu reeba waxyaabaha jeceshiin inaan aad horta anigu mar walba waxaan diyaar idin laahay wixii dhiirigelina wixii talooyina wixii magaranaysaayay idinka laftiina kumatiga noogu reeba waxyaabaha xiisaynaysaan ee jeceshiin in had iyo jeer lagu soo gudbiyo annagana waan naga go'an tahay diyaar baan idin insha Allah haddii alla ka dhigo marka aynu wada soconno haddii alla ka dhigo insha Allah يعني isla soconay insha Allah بعد فادو arkayaa cadada wallahi faad badan baynu iska gubaynaayo saliidii badnaayada magaalada aynu ku isticmaalayna qashinkii baynu iska saaraynaa marka cadada anigu waan soo dhaweynayaa aniguna sidoo kale waan soo dhaweynayaa laakiin tii bay la go'ay ayo waliba kalarkaaga waxaad moodaa inay garanaysaa ku dhageyso anigu deemadooda baan oo ima karaysa cadada Soomaa aniyo horta kalarkan buu waxay yeelay waa cadad moogti way oo deeyada iga si qaatay marka waa ilaahay mahadii kulli qorraxdana caafimaad baa ku jirtaa caynka weey marka insha Allah baa laga helaa caafimaad badan baa laga helaa soo dhawaad asxaabay nala lugeeya waa inaga oo deem garanaysaa cadayada dhex jibaxna waddankeena runtii nabadda iyo aynu ku haysanaa amaankana aynu dhankaynu doonno wax qaadno marka ma sha Allah aynu wada socono